laakiin kulliba waxaan u malaynayaa inuu Rooble oo tala ku lahaa inaan Fahad kursi ka qaadan meesha sarkaal niisa ka tirsan Rooble dilay waxaas waa un qofka afkiisu leeyahay oo ka hadlay maalmaha kamid waa la weydiin doonaa noo sheeg sababtii waxaas iyo nin u baahan oo soo galay nin buu ku dhagay waa la qabtay asagii ruuxiis waa la bixiyay markaas un bay xabada bilaawatay maxaa sababta ahayd in hotel qof shacab uu leeyahay ganacsi ah la geeyay xildhibaanadii may fadhigii baarlamaanka fadhiga baarlamaanka waa tuhub lagu soo riday dad masaakiinaha ku dhaawacmay oo indhahoodii ku waayay ka bacdina dhib baa dhacay oo waxaana la ka jajabiyey qaboojiyaashii iyo haanti biyaha iyo wixii oo dhan baa la dalooliyey biila hargeysa marka biila hargeysa awalba doorasho waa laga bixi lahaa wax laguma doorteen laakiin dee markii tasiilaadkii wixii lagu shaqaynayay waxna gaareen subaxii dambe waa la yimid maca shaqaalihii waa laga bixiyey shaqaalihii shaqaynayay waa laga bixiyey marka waxaan u haajirnay tayndhadana waxaa la yidhi aqalka sare lagu dooranayaa taliyaha ciidamada booliska noo yimid wuxuu yidhi ka baxa arbacada aad tiraahdan doorashaa jirtaa imaan kartaa haddee anagu ma hubaysnayn waa ka baxnay waxaan tagnay hoteelkan dakaale la yidhaahdo oo airboor ku yaalla turkiga u dhisay tendhada sababta idinkaga bixiyey taliyaha booliska maxay ahayd asaga weydiiye waxaa la yidhi berrina waxaa imaanahaya sanadka isku dooranahaya albaabaduna waa xiran yihin waa xiraynaa security-ga annagaa ka madax ka baxa marka qori ku taag ma fiicna waa niman hubaysan oo dalkii madax ka ah ma maslaxaad u arkaysin inta doorashadaas aqalka sare ay u xirayaan mise ishor istaag xildhibaanada la dhaarinaada u arkaydeen adigu waxay noqotaba warku wuxuu ku yaryahay wax talyaanigu nabaro la oran jiray k commanda falla lege ninka xukunka wata unbaa sharciga dejiya markay dee xoogaa midda sharcigaa laga gudbo ninka ku xukumaha isagu sharcigu rabo waa mafulinaaya marka haddii mar taliyihii booliis noo yiri nabadgelyadaan sugaynaa berrina qolaa imaanaysa idinku ma imaan kartaan ma lihidin annagu waa u sheeg waxaan yidhi dalka maanta anaa madax ka ah waxa weeye ra-iisul wasaare ma jiro waa xilgaarsiin buu ahaa madaxweynaha waktigiisi waa dhammaaday baarlamaankaa sharciyo la dhaariyey baarlamaankii baan madax u ahay amarka qaado isagana lama noqon markaas sidaas markaa tir anaa dalka madax ka ah doorashadan ka shaqeynayaa yiri nabadgelyada ayaan sugaynaa albaabadoo dhan baan xiraynaa waa casar weeye haddeer caawo dhammaan ilaana berrina qolaa imaanaysa waa sugaynaa waa inaan ka baxdaa qori ku taag waan kuu sheega ma fiicna waa baxnay hoteelkaasaan tagnay irdii baa la xiray waxaa la yidhi looma geli karo asagina waa ka tagna waxaan tagnay meel airport hotel gudaha shishaha tii weeye marka dee weerarka iyo xabaduhu yimaadeen hadde marka waxna kuma dhiman nasiib wanaag nimankiina waa dhaarinay maxaa yeelay dee berri waxaa la rabaa inay ka qayb galaan bay ahaydeen muddadii markaan fiirinaan waxbaa u dhimanaaday marka ma ana siin awoodda ay ku codayn lahaayeen airportka hoteelka maxaa ka dhacay waad isku imaateen 16 aad joogay xogayihii baarlamaanka iyo adigii oo gudoomiyihii ku meel gaarka waad joogteen maxaa dhacay habeenka waxaa ka dhacay waxay isku dayeen nin baa soo galay wuxuu isku dayay inuu xogayaha baarlamaanka la tago isna wuxuu mooday nin wax u sheegay uu istaagay marka rag baa ku dhagay oo yiri ma baxaysi ka bax asagii si qasabaa loo qabtay albaabka markii laga bixiyay bay xabaduhu bilowdeen oo albaabkii laga soo xiray yuu ahaa ninka ma aqaanan ma kala aqaan ninka airportka xukumo ah baa la security-ga niisa nabad sugidda ah ma kala aqaanan marka meesha banaanka la isku xabadaynaya annaga waxba nama gaarin gudahan ku jirnay afurna waa ahayd waa dhaarin shidna waan qabtay sababahana waa halkaasan ka sheegay yay tahay cidda xabadaha idinku soo ridayda oo idin soo weerartay xildhibaan waa qoladaas iyo kuwii difaacaya waa kuu sheegay waa niisadii iyo kuwii difaacaya oo iyaga ka hortagaya oo ahay ciidanka nabadgelyo annaga nala socday waaya sidee kula muuqatay ciidankii nabad sugidda ama sirdoonkii qaranka in qofkii dalka ugu sarreeyey gudoomiyihii ku meel gaarka ah xildhibaano dhaarinaya sharciga ku socda filla Hargeysa laga soo bixiyay
teendhadii laga soo bixiyey eraboorka yimid inta ugu daba yimaadeen xabadeeye see kula muuqanaysa hadda waxa wey horta dadka jooga oo shaqaalaha ama shaqeeya ama ciidamada ah sharciga iyo dastuurka gacanta kuma wataan taliyay leeyihiin oo nidaamka waxaa la yidhahdaa waa jirarkiya military ama booliisiyood waa wixii taliyihiisa u sheegu yeelaya haddii nimanka amar la siiyey ayagoo amarkiiba fulinayaan dastuurka inta fiiriyaan war ninkaan waa ninkii madaxda ahaayo dariiq nooma aha waxaana waa dhammaadeen ma ahan marka de anugu ayaga lama yaabani mana oran yayihiin kumay ahaayeen magacoodii midna ma weydiisan marka waxaad u arkeeday ninka ugu sarreeya nabad sugidda inuu amar soo siinay in xalada xambadeeyo amar la'aan ayagu wax ma sameeyeen ciddii soo siisayna ma dabagelin anugu ilaahay waa naga badbaadiyey hawshaydana waa qabanay wixii meeshaas ka dhacana de ummadoo dhan baa arkayso onaysay marka ayaga in la weydiiyo la yidhahdo sharciga ma taqaanin miya ay wax kala waayo goor la xaajaystana ma ahayn oo de maba ana aqoonba anugu nin unbaa noo soo galay nin buu ku dhegay waa la qabtay isagii ruuxiis baa la bixiyey markaas unbay xabada bilaabatay laakiin ka guddoomiye ku-meel gaar ahaan adiga waxay kula muuqanaysay in ninka ugu sarreeya nabad sugidda uu amar soo siinayay anigu ma aqaan cidda soo siisay laakiin haddii sharci jiro sharciga unbaan weydiin doona waayahay warar waxaa soo baxaya xildhibaan habeenkaas iyo maalintii ka horreeyday guddoomiyihii xildhibaan dhaban cad shirqool lagu dilayaa la maleegay warkaas intee in la egaa ka run ahayd maku soo gaaray maxaa dhacay anigu hadda laimana dilin hadda wax ii socdool waa ku dilaynaana ma arag marka midaas iyada qofka ilaah anu waxaan ogonahay wax qoran baa jiro oo haddaad dhimanayso waa dhimanaysaa marka meeshaas wixii un ka dhacay dee nidaamka ma waafaqsanayn laakiin haddee dadka u taliya iyo siday yihiin unbaa ka hadli doona ila tahay laakiin khatar badan waad wajahday khatar badan baa jirta hadda banaha xabado tiro badan oo 100 ku dhowa meesha ku dhacay albaabkii iyo dambiyadii iyo hoteelka ninkii lahaban ka xumaayaan ninka aad hadda intaa ka sheegtay dadaalka doorashada uu ku bixiyey musharax ahayn waan rasaare ugu horeeyay inta badan ra'iisul wasaarayaasha waxay ahaayeen marka uu xilka madaxweynaha dhamaado in musharaxiinta ay qayb ka noqdaan doorashadii mas'uulka ahaa si toos u gaarsiiyay eedeyn badan baa soo yeertay nabad sugidda xilliga shaqeynaysay eedeyn badan bay jeediyeen waxaa maqan sarkaal gabar ah niise ka tirsanay waxaa la yidhi waxaa ka dambeeyey sarkaalkii ugu sarreeyey ee agaasimaha ka ah niisa ra'iisul wasaaraha shir qoolay dilkeeda qayb ka ahaa si siyaasad u geliyo ayuu yidhi inta aad wasaaraha ka baratay ma kula muuqanaya nin hawsha ku kacaya horta barashadu dee waaba iska yartahay 2 ama 3 goor baan arkayba anigu dee muxuu qaban karaa iyo maxay ahayd midna maaha ninkii iska hadlano hadda yiraahda isagaa dilayna isagaa la weydiin doonaayo dee meesha maxkamadaha ka jira yacni kursigii uu laalay oo kulliba mas-uulka ah isagu dee hal laala guddoomiyihii doorashada federaalku laakiin kulliba waxaan u malaynayaa inuu rooble oo tala ku lahaa inaan fahad kursi ka qaadan meesha marka annagu waxaasoo dhami nima ay qusaynin niman musharax ahayn oo shaqaynayo dadaalahayo oo wixii la dhammaystiro wixii la ii diray dee ciddii garab ku siisaana sharaf bay u ahayd aniguna xaggaas inuu si fiican u qabtay laakiin shaksiyadiisa kale iyo waxbuu dilaana hadee sababu ku dili karaaba ma jirtaba de sarkaal niisa ka tirsan roob la dilay de waxaas waa un qofka afkiisu leeyahay waa ka hadlay maalin maalmaha ka mid waa la weydiin doonaa bal noo sheeg sababta iyo waxaas iyo ama roob la ka dacwoon karo oo dee maxkamada tagahay defamation of character baa la yidhahdaa hadduu qofku wuxuu uusan ahayn lagu sheego meelo looga dacwooday leedahay khatarteeday leedahay marka taas anugu ma sii dhexgelahay laakiin shakhsiyan intaad ka taqaano hadee sabab mugta waxaa la fiiriyaa sabab qofku hadduu dhib ugu hayo qofkii aan hadda aan ku kalsoonayn maxkamada inuu tago qofka waxaa dhici karta inuu asna dee iska celiyo marka dee sababa ima muuqato gabar niise ka shaqaysa baa prime minister ku dilay iyo wasiire iyo waxaas warkaas la yiri waan war la iska yiri laakiin dee idinku dabagala ninkii yiri xildhibaan baa tahay guddoomiye ku meel gaar baa soo noqotay oo kusima ah inta guddoon laga dooranayo
niisa hogaamiyaasheeda agaasinkeeda iyo agaasinka hadda cusub xilligaana mucaarad ahaa in gabar sarkaal ah ay isku tuuraan koox hebelaad dishay iyo koox hebelaad dishay see kula muuqataa? waxay ila muuqataa maxkamad baa una caddayn kartaa ciddii wax lagu tuhmo ama dee wax lagu hayo maxkamaddaa soo qoraysa. raggiina hadda say u badan yihiin hadda baarlamaankayba soo galeen qaar badan waa arkay niman ku jiro la yidhi waa raggii madaxda ahaa. dadkuna waxaa fiican in aflagaadada laga fogaado. anugu waxaan ka arkay waxaan ka qiyaasi kara ma lehee maxkamadda inay wax kala saarto waay. maxkamadda ayaa ninkii wax weydiinaysa waxay tuhana dabagelaysaa. garyaqaanaa jira la qabsado inay hadda jiraanna waa u malaynayo arrintaas iyadaa lagu jiro. dee marka ciddii wax gaareen xataa markuu dalka laga tago meel wax la weydiistay lasoo helayo qofkii. waa interbolkaas yaa loo sheegay wixii dembiya oo la caddayn karo waa in qofku ka jidbaxa. marka maxkamadda aanu dayno.